السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوالة دبقلك وركها كريس ميديا قضبضان إذا كوها إننا وحاكميدا دولة إماراتك أيا مركي ugu horeysay baa la yiri aastay baa la yiri dadka Falastiiniinta taasi oo gargaar ay ku sheegtay ay u marsiisay baa la yiri wadanka Israa'iil oo cilaaqaadka ay ayaanta la doonaysay dowladda Imaaraadku in cilaaqaad wanaagsan ay la yeeshaan dowladda Yuhuudda waxaa muddooyinkii ugu dambeysay ay daaha ka rogayaan Imaaraadku siyaasiin qalafsan oo ku aadan dhanka gacanka carbeed aan idhaahdo iyo wadamada islaamka taasi oo islaamku oo il gooniya ku hayay jaamacadda carabta qaabka ay wadanka Imaaraadka ama Sacuudi Arabiya ay ula dhaqmayso wadamada islaamka hasaatee Imaaraadka ayaa u muuqda inuu yahay mid muddooyinkii ugu dambeysay ay ceebtiisu dibadda soo baxday arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dowladda aan ilaahday Falastiin ay warqad ay soo dirtay ay ku sheegtay in dowladda Sacuudi Arabiya aysan la soo socodsiin bay tiri aysan nala soo socodsiin in dowladda Sacuudi Arabiya ay arrimo jira awgeed aysan inoo keeni karin gargaar balse ay diyaar noola tahay gargaar sidaas awgeedna ay go'aansatay inay Israa'iil inoo soo marsiiso taasina waa arrin sharaf ku dhac ku habay dhaheen qadiyadda Falastiin iyo gaar ahaan dowladda Sacuudi Arabiya ee islaamka oo dhan mana doonayna bay dhaheen gargaar gacan Yuhuudda noo soo marsiiyay taasi oo kaga dhigan tahay in Sacuudi Arabiya oo garab siinayo wadamada qashqashaada ee wadamada islaamka qaasatan dowladda Yuhuudda ee Israa'iil Sacuudiga ayaa markii ugu dambeeyay wuxuu ayaamahanba la gangabanayay xaalad waji gabaxnimo oo dhanka siyaasad xumaa kadib boqorka iminka talada hayo oo kula dhaqmay wadamada islaamka taasi oo ku fashilmay sida uu u wajahay siyaasadiisa arrimada dibadda taasoo ay dhanka taaba la yiri Soomaaliya Liibiya Syria iyo wadanka ay diriska yihiin Qatar oo si xun u galay kadib markii uu go'doomay hasaatee Turkiga ayaa gaashaanka u daruuray oo isgarab istaagay taasina ay ceebtiisa ay banaanka imaaday wadanka Sacuudi wadamada khaliijka marka loo eego wadanka Imaaraadka ayaa wadooyin waayidii ugu dambeysay wuxuu u maray wadooyin qalafsan taasi oo ku majaxabinayo asagoo hadda markii ugu dambeysay sheegay inuu ka qayb galayo shidaal qorista Soomaaliya hasaatee dowladda Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruurtay iyadoo Imaaraadka waayidii ugu dambeysay ilgooniyo ku haysay shakina ka qabtay Imaaraadka inuu ceelasha saliidda ee Soomaaliya uu dhibaateeyo taasi oo noqoto baa la yiri in dhibaato ay ka dhalato kadib markii looga shakiyay inay u isticmaalaan waxyaabaha waxyeelay kara batroolka inay isticmaalaan ama ay maran habayaan goobaha rasmiga ah ee shidaal baarista lagu sameyn lahaa deetana Soomaaliya ay diiday in laga saaro boqolkii hay-adood ee Soomaaliya 7 blog ee batroolka ee Soomaaliya laga helay inaan Imaaraadku ka qayb galin ugu dambeyn haddii aan qeexno wadanka aan iraahdo diga saral aan ku celsho halkaasi ugu dambeyn dowladda Falastiin ayaa gaashaanka u daruurtay adeegaas kaasi oo la sheegay inuu ahay in adeegyada caafimaad ay dowladda Sacuudi Arabiya ay u soo dirtay hasaatee Falastiin ayaa sheegtay in loo soo mari karay haddii ay tahay wadamada carbeed ama hay-adaha qaramada midoobay ee caalamiga halkii loo soo marsi lahaa dal gumeysta oo dalka Falastiin qashqashaada ay taasina qadiyadda ayay meel kaga dhacaysa ay dhaheen sidoo kale dhanka kale waxaa warqad oo soo dhigay qoraal oo soo dhigay aan iraahdo bartiisa Twitterka ninka la yiraahdo Tariq Ali Zaman ninka la yiraahdo oo ah baa la yiri dowladda Venezuela ka tirsan ayaa sheegay in shantii markab ee ka imaanaysay dowladda Iiraanka jamhuuriyadda Iiraan oo sheegay inay soo gaartay iyagoo galbinayaan maraakiibta dagaalka iyagoo galbinayaan buu yiri diyaaradaha gumaatiga u kaco asaatee iyo maraakiib dagaal shantan markab ayaa dowladda Venezuela Mareykanka uu diiday in ay halkaasi ay gaaraan madaxweynaha Mareykanka ayaa goor horeysay amray in maraakiibtan talaab laga qaado haddii ay isaga gudbaan gacanka Crimeanka ee halkaasi oo ciidamada Mareykanka ay aad u soo buux dhaafiyaan kuwaas oo wataan baa leeyahay gaadiidka aan iraahdo maraakiibta biyaha kuwa quusa iyo kuwa baaximaare leeyahay diyaaradaha nooca kala duwan asaatee dowladda Iiraan ayaa sheegtay haddii Mareykanku uu isku taabto maraakiibtaas in cawaaqo xumo
oo kala kulmi doono sidaas awgeedna ay ku soo dartay baa la yiri maraakiib kale oo galbiso dowladda Iran sidaas awgeedna ay si xoog ku mareen baa la yiri halkaasi oo ay ku sigteen baa la yiri in la isfara saaro hasaatee jamhuuriyadda Iran ayaan u muuqana la yiri mid baqdin ka qabta in Mareykanka uu hor istaago arrintaasi cali oo tariiq cali simaan ninka la yiraahdo ayaa sheegay in haddii dowladda aan iraahdo ciidamada Mareykanka ay hor istaagi lahayn markabkan ay ka dhici lahayd buu wuri arrin xun taasi oo ay u muuqatay buu wuri in dowladda jamhuuriyadda islaamiga ee Iran ay u diyaar garowday wax walba oo ka soo wajihi lahaa halkaasi taasina ay sababtay buu leeyahay in maraakiibtan ay soo jeexaan gacamka iyo waliba sharciyadii ay ku taamayeen dowladaha Mareykanka iyo xulufadiisa oo diidanay in labadan dowladood ay isdhaafsadaan buu yiri isdhaafsadaan gacmaha taasina ay tahay buu yiri cawaaqib xumo iyaga qudhooda saameyn doonto waa sidoo hadalku dhigay maraakiibtan ayaa dib u soo laaban doona la yiri iyagoo wada baa la yiri dalagyo kala duwan oo kamid yahay qamadiga halkaasi oo loo isticmaalo baa la yiri inay siiyaan xoolaha iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay hasaatee lama oga sababta keenay dowladda Mareykanka oo ka jawaabtay hadalkaas qoraalka ayaa sheegtay in laba dal oo ku tilmaamay inay yihiin calibaystaan ay isdhaafsanayaan kadib markii adduunka soo xirmay ay shuruucda jabinayaan taasi oo ula jeeday baa la yiraahdo dalka Venezuela iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Iran ee shuuciga aan iraahday jamhuuriyadda shuuciga ee Iran in ay jabinayaan buu yiri xeerka badaha caalamiga taasina ay dhibaato ay wajihi doonto haddii aysan arrinkan aysan wax ka bedelin sidoo kale waxaa qarax xoogan ka dhacay baydhabo kadib waqooyiga baydhabo kadib markii dad isugu soo baxay fantastiyo ay hidaha dhaqanka oo ciyaar ay isugu soo baxeen taasi oo damaashadeen xilli ay ku jiraan maalinta ciidda ay qarax ugu geysteen baa la yiri xarakada al-shabaab hasaatee waxaa qaraxan ku dhaawacmay sida la sheegay 15 kamid ah dadkii dhalinyarada ay halkaas isugu soo baxay afar kamidana ay ku dhimatay halkaasi lama oga sababta dad faraxsan ay u carqaladeen bay la yiri dadka baa la sheegay inay doonayaan inay maamul qabtaan haddana saan ula dhaqmaya bulshada Soomaaliyeed waa cadawtinimo ayay dhahan dad iyagu isugu soo baxay halkaasi oo ka hadlay sababta ay arrintan u dhacday sidoo kale dowladda wadanka Ruushka aan iraahdo dowladda wadanka Russia ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxay ku taamaysay in dagaalka ka socda halkaasi ee Liibiya in laga gaaro nabad sidoo kale dhan kale Khalifa Haftar ayaa asigana la sheegay dhankiisa in uu wajahaya baa la yiri tii ugu xumeed oo soo food saartay halkaasi oo ka helay taageero ballaaran baa la yiri wadamada Carabta qaar kamid ah oo Imaaraadka ugu horeeya asaata ay ku fashilmeen kadib markii dowladda Turkiska ay fara la yaqaan saartay baa la yiri halkaasi sidoo kale madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Turkiska Recep Tayyip Erdogan ayaa maray qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka asiga qodiisa ay isla garteen baa la yiri saddexdooda in arinta Khalifa Haftar la soo afjaro deetana Khalifa Haftar oo hubka dhigo sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka lama ogo halkay ku dambeyn doonto hasaatee wuxuu u muuqdaa Khalifa Haftar mid luminaya baa la yiri istiraatiijiyadii dagaal oo soo lumiyay salgiyada ugu muhiimsanay hasaatee xaaladiisu ay noqotay mid gababsi ah wixii ku soo kordhay wararkan dambe ayaad ku maqli doontaan fadlan channelka doo kugu cusub subscribe saar haddii uu kugu soo cusbayne fadlan u gudba saaxiibtada like tay share tan naga halmaaminina assalaamu calaykum